Bismillahirrahmanirrahiim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo waliba Soomaaliya qaybtan waxaan ku eegi doonaa xalka bariga dhexe saacadihii ugu dambeeyay xogo iyo macluumaad laga helay ciidamada Mareykanka talaabo waqtigan ay qorsheynayaan in mar kale la filayo in saacada markay gaarto siqda dhexe caawa in weerar cirka ay ku qaadi rabaan Iran hadaba arrin sirdoon oo la helay ayaa muuqaalkan idinku la wadaagi doona waxaan sidoo kale eegi doonaa ninkii Netanyahu ahaa amar wasaaraha Israel wuxuu isna bilaabay raadinta xogta sirdoon ee ku aadan talaabooyinka ee waqtigan markaasi loo qaadi karo Iran hadaba Iran difaac adag ee waqtigan u gashay ayaa u muuqato waqtigan in iyana si weyn feejignaan ay markaasi ugu jirto waxa bilowday hub urursigii ugu adkaa ee abid waxa markan saddex geesood noqonaya dagaalka bariga dhexe iyadoo maalmihii ugu dambeysay xoogan u socday Iran ayaa markale dalab loo soo bandhigay oo ku aadan in markaasi hubka ay dhigto wada hadallada ay dib u soo gasho hadaba maxaa ka jira arrimaha kale ee la xiriira waqtigan Mareykanka inuu gabi ahaanba ciidamadiisa markan dib ugu daadgureynayo ee gobolka bariga dhexe qaybtaasi aan raba saaxiib halka ku qaada dhigo soo dhawaada walaalayaal muuqaalka like noo saara like meel dheer ayayna gaarsinaysaa haynaga akrinayna please subscribe tana saaxiib channelka noo soo saara waan idin ku xusanayaa mar kale saaxiibadeeda runtii channelkan maalmaan hoos u socda inaan kor u qaadnaan rabnaa bakor nool soo qaad Allah koreedan qaaday mahasanidiin soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegi doonaa qorshaha caawa xaaladda bariga dhexe 6 saac waxa la qorsheenay ama 12 habeenimo waxa la qorsheenay in Mareykanku uu qaado arrimo sirdoon oo la helaya ayaa banaanka shaaca keenay waqtigan in Mareykanka ciidamadiisa ugu badnaa bariga dhexe dib ugu daadgureynaya waxa markan maraakiib culus oo waliba kuwa dagaalka ee dib loogu soo howlgelinaya bariga dhexe iyadoo Trump uu wacd uu ku maray in aan marnaba aysan joogsan doonin howlgallada ka dhanka ah ee uu ku qaadi doono waxa sidoo kale la warinayaa arrimo la xiriira oo ku aadan sidii markan caawa markay gaarto saacada 6 iyo qadar ama 12 habeen mahad qof sidoo u yaqaano in Mareykanku uu qorsheynayo in weerar cirka uu ku qaadi doono Iran waxaan markan diiradda la saaray sidii gabi ahaanba Iran markale weerar ka dhanaa cirka loogu qaadi lahaa walow aan si cad loo shaacinin haddana waxa muuqato xog sirdoon oo waliba shaac laga qaaday ayaana tilmaamaysa in tiradii ugu badnayd ciidamada Mareykanka ahi hubkii ugu cuslaa oo farta laga saaray maxaa ka jira weerarada culus ee waqtigan dabcan Mareykanku uu qorsheeyay iyo waliba sidoo kale Israel doorka ay ku leedahay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa lagu waramayaa in kaalin lixaad uu ku leeyahay talaabada tani waxaana la warinayaa in qorshaha ugu muhiimsan waliba arrinta sirdoon ee la xiriirta inuu kala shaqeynayo Trump iyo waliba xulafadiisa ilaa ay hadda wali si cad looga ma hadlin laakiin xogahan waa kuwa sirdoon oo la helay macluumaad ku saabsan iyo waliba qorshayaasheeda taasi oo markaasi lagu maldahayo yoolalka kala duwan ee waqtigan ka soo baxay halkaasi ma jirto ilaa ay hadda wax cad oo wali banaanka soo dhacay laakiin waa un xogaha hoose la helaya in xaaladda bariga dhexe caawa 6 habeenimo wixii ka dambeeyay mar kale isbedeli doonto iyo waliba sidoo kale Mareykanka oo markan ciidamadiisa ugu badnaana dib ugu daadgureynaya isagoo gobolka bariga dhexe ka wada maraakiibta ugu cuslayd ayuuna hadda mar kale howl geliyay oo waliba Mareykanka waa uu soo jeestay mar kale dhinaca Iran waxay markan ku dhawaaqday in ay markaasi ilaa looga aaro hogaamiye sare oo hogaamiye Ayatollah Ali Khamenei in aan dib ugu laaban doonin howlgal kasta iyo waliba talaabo kasta ay maado waana qorshaha ugu adag ee Iran ay ku taagan tahay iyadoo waliba dhowr maalmood lagu celcelinayo in ay qaadato xabad joojinta ka dhanka laakiin waa la isku farsaari doonaa mar kale xaaladda bariga dhexe cirka ay isku sii shiriiri doontaa sida la qorsheenayo hadii Mareykanka iyo Israel ay weeraradooda dib ay u bilaabaan Iran waa ay diyaar garoodaysa iyana markan waxa muuqata markan in niyadjabkii maalmo ay la dhacsanaayeen ciidamada Mareykanka gaar ahaan iyo waliba ra'iisul wasaaraha Israel ay dib u soo celin doonaan yoolalkooda siyaasadeed iyo waliba aragtidooda ku aadan hadaba wixii macluumaad kale ka soo kordha iyo arrimahaasi bariga dhexe halkan ayaan kugu la wadaagi doona saaxiibayaal waa codsi please no like rem muuqaalka like meel dheer ayayna gaarsinaysaa fadlan channelka nagu soo bir subscribe noo saara waad ku mahadsantiin ilaa dhamaadkan hadda la soo gaarteen